فلما رسول الله عوتبك صدح يتمناد haddaba kiniisaddii antiyokh ku tiil waxaa joogay nebiyo iyo macallimiin kuwaas oo ahaa barnabas iyo simcoon oo la odhan jiray niger iyo lukiyos oo reer kurenaaya iyo mana'een oo la koray taliyaherados iyo sawlos oo markay rabbiga caabudayeen oo soomanaayeen ayaa ruuxa quduuska wuxuu ku yidhi barnabas iyo sawlos iigu sooca shuqulkii aan ugu yeedhay markay soomeen oo duceeyeen oo gacmahoodii saareen dabadeed ayay direen iyagii haddaba iyagoo ruuxa quduuska ay soo diray waxay tageen salukiya meeshaasna waxay uga dhoofeen qubrus oo kolkay salaamis joogeen ereygii ilaa bay ku wacdiyeen sunagogyada yuhuudda oo yooxana ayay kaaliye u haysteen oo kolkay jasiiraddii oo dhan dhex mareen ayay waxay yimaadeen bafos taas oo ay kala kulmeen nin saaxira oo ahaa nebi beena oo yuhuudiya oo magaciisa lo odhan jiray barciise bawlos oo ahaa nin garasho leh kaasuu markuu u yeedhay barnabas iyo sawlos wuxuu doonayey inuu ereyga ilaahay maqlo laakiin waxaa iyagii ka hor istaagay saaxirka elumas oo sidaas magaciisa loo fasiri jiray oo wuxuu isku dayey inuu taliyihii ka leexiyo iimaanka laakiin sawlos oo ahaa bawlos kaas oo ruuxa quduuska ay ka buuxsamay ayaa aad u fiiriyey oo ku yidhi kaaga khiyaanada iyo xumaanta oo dhammu ka buuxsantay oo wiilka ibliiska iyo cadowga xaqnimada oo dhan miyaanad ka joogsanayn qalloocinta aad ku qalloocinaysid jidadka toosan oo rabbiga haddaba bal eeg gacanta rabbigu waa ku saaran tahay oo waad indhabeeli doontaa adigoo aan qorraxda arkayn intii wakhtiga kolkaasaa markiiba waxaa ku soo dhacay isagii ceryaamo iyo gudcur wuuna warwareegay oo doondoonay nin gacanta ku haga kolkaasaa taliyihii kolkuu arkay wixii dhacay rumaystay isagoo ka yaabsan rabbiga waxbariddiisa haddaba bawlos iyo kuwii la socday ayaa ka dhoofay bafos oo waxay yimaadeen berga oo bamfuliya ku jirta markaasaa yooxana ka tegey iyagii oo yeruusaalem ku noqday laakiin iyagu kolkii ay tageen berga waxay yimaadeen antiyokh oo bisidiya ku jirta oo maalintii sabtidana sunagoga ayay galeen oo fadhiisteen markii sharcigii iyo nebiyadii la akhriyey dabadeed kuwii sunagoga uu sarreeyey ayaa cid u soo diray iyagoo leh walaalayaalow haddaad dadka u haysaan hadal waanaa dhaha markaasaa bawlos taagay isagoo gacan haadinaya oo wuxuu yidhi nimanka reer binu israa'iilow iyo kuwiinna ilaah ka cabsadow dhegaysta ilaaha dadkan reer binu israa'iil wuxuu doortay awowayaasheen dadkana buu ka sarraysiiyey markay dhulka masar degganaayeen oo gacan taagan buuna kaga soo saaray iyagii oo wakhti abbaaraha 40 sannadooda ayuu dabeecaddoodii ugu dulqaatay cidlada oo markuu 7 quruumood ka baabi'iyey dhulka kancaan dabadeed ayuu dhulkoodii dhaxal u siiyey iyagii abbaaraha 450 sannadood waxyaalahaas dabadeed wuxuu siiyey xaakinno ilaa nebi samuel dabadeed waxay weyddiisteen boqor markaasaa ilaah wuxuu iyaga siiyey saa'uul inaqiis oo ahaa nin reer benyamin intii 40 sannadooda kolkuu isagii boqortooyadii ka wareejiyeyna wuxuu u kiciyey iyagii daa'uud inuu boqorkooda noqdo kaasoo u markhaati furay isagoo leh waxaan ogaaday daa'uud oo ina yeseya inuu yahay nin ah sida qalbigaygu doonayo oo samayn doona waxaan doonayo oo dhan ninkan farcankiisii ilaah siduu ballan qaaday ayuu israa'iil ugaga keenay badbaadiye kaasoo ah ciise oo intuusan imanba yooxana wuxuu dadka israa'iil oo dhan hore ugu wacdiyey baabtiisanka toobadda oo intii yooxana shuqulkiisa dhammaynayey wuxuu yidhi yaad u malaynaysaan inaan ahay anigu isagii ma ihi
laakiin bal eega waxaa iga daba imanaya mid aanan istaahilin inaan kabaha cagihiisa ka furo walaalayaal oo idinkoo ah farcankii ibraahim iyo kuwa idinku dhex jira oo ilaah ka cabsadow innaga ayaa laynoo soo diray ereyga badbaadinta waayo kuwii yeruusaalem joogay iyo taliyayaashoodii waa garan waayeen isaga iyo codkii nebiyada oo sabti walba la akhriyi jiray sidaas daraaddeed ayay waxyaalihii dhammeeyeen markay xukumeen isagii oo inkastoo ayan ka helin sabab lagu dilo ayay waxay bilaatos weydiisteen in la dilo oo markay dhammeeyeen waxyaalihii laga qoray oo dhan ayay geedkii ka soo dejiyeen oo xabaalgeliyeen laakiin ilaah baa ka sara kiciyey kuwii dhintay oo maalmo badan waxaa isagii arkay kuwii ka kala yimid galiili ilaa yeruusaalem kuwaasoo hadda ah markhaati furayaashiisii xagga dadka oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan oo ku saabsan ballankii awowayaasheen loo ballan qaaday oo sidii ilaa ballankaas ugu oofiyey carruurteenna markuu ciise sara kiciyey sida ay sabuurka labaadna ugu qoran tahay waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay isagii buu ka sara kiciyey kuwii dhintay intuusan mar dambe qurun ku noqon sidaas daraaddeed ayuu sidan ku hadlay isagoo leh waxaan idin siin doonaa barakooyinka runta oo daa'uud loo ballan qaaday saas aawadeed wuxuu sabuur kale ku yidhi kaaga quduuska uma oggolaan doontid inuu qudhmo maxaa yeelay daa'uud markuu qarnigiisa ugu shaqeeyey talada ilaa dabadeed ayuu dhintay waana lala xabaalay awowayaashiis wuuna qudhmay laakiin kii ilaah sara kiciyey ma uu qudhmin sidaas daraaddeed walaalayaalow garta ninkan xaggiisa dembidhaafka laydinkaga wacdiyey nin kasta oo isaga rumaysta xaq baa lagaga dhigay wax walba oo sharciga muuse uusan xaq idinkaga dhigi karin sidaa darteed iska jira inaanay idinku dhicin wixii nebiyadu sheegeen iyagoo leh bal eega kuwiinna wax quudhsadoow yaaba oo luma waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul oo ah shuqul aydnaan rumaysan doonin haddii laydin sheego kolkay baxayeen dadkii waxay ka baryeen inay hadallada sabtida dambe kula hadlaan haddaba markii sunagoga laga tegey kuwo badan oo yuhuuda iyo kuwo cibaadaysan oo yuhuudda raacsan ayaa waxay raaceen bawlos iyo barnabas kuwaas oo la hadlayey iyaga oo ku adkeeyey inay nimcada ilaah ku sii wadaan sabtidii dambe ayaa magaaladii oo dhan in yar mooyaane isugu timid inay maqasho ereyga ilaah laakiin yuhuuddu markay arkeen dadkii faraha badnaa waxaa iyaga ka buuxsamay masayr wayna beeneeyeen waxyaalihii bawlos ku hadlay waana caayeen haddaba bawlos iyo barnabas ayaa geesinimo ku hadlay iyagoo leh waxay ahayd lagama maarmaan in ereyga ilaah markii hore idinka laydinkula hadlo laakiin idinku waa diiddeen oo waxaad isku xukunteen sidii kuwo aan istaahilin nolosha weligeeda oo bal eega sidaas aawadeed waxaannu u jeesanaynaa dadka yuhuudda ahayd maxaa yeelay sidaasaa rabbigu nagu amray isagoo leh waxaan kaa dhigi doonaa iftiinka quruumaha inaad badbaadinta u noqotid ilaa meeshii dunida ugu fog haddaba markii dadkii aan yuhuudda ahayn taas maqleen ayay ku farxeen oo ereygii ilaah ammaaneen oo waxaana rumaystay kuwii nolosha weligeeda loo dhigay ereygii rabbigana waxaa lagu faafiyey waddankii oo dhan laakiin yuhuuddu waxay soo kiciyeen dumarkii cibaadada iyo sharafta lahaa iyo raggii madaxda magaalada silac bayna bawlos iyo barnabas ku kiciyeen oo soodintoodii bay ka eriyeen iyagii laakiin markay siigadii cagahooda ka dhabaandhabayeen dabadeed ayay waxay yimaadeen ikoniyon xertiina waxaa ka buuxsamay farxad iyo ruuxa quduuska